waxaanu shucuurtayada ku muujinaynaa xasuuqa iyo tacadiga lagu hayo gado xasuuqa iyo tacadiga gado lagu hayo ayaan u soo banaan baxnay mana yeelayno Axmed Geedanaar iyo ninka kala yiraahdo Xasan gacanta ka gabdha gade waxa ay sameynayaan ma ka yeeli doono gada waxa ku nool waa rag naaga maahan naaga kale kuma noole rag xiniye leh ba ku nool ragana magacooda waa la yaqaan ninka u dhashaana waa la soogi ninka u dhashaana waa la soogihay Xasan gabdha gato Xasan gacanta to gada xasuuqa hadaadan ka dayn wallahi waad u dhimanaysaa baan ku irid sidii garaal cali jaamac bagaysi loo noqdaa laba gariire sarwaalka la gigsadaa ragga gada jooga go'aan baa la idinka rabaa go'aan baa la idinka rabaa wardiida ma diideen Axmed Geedanaar ma diideen waxaad ogtiin Soomaaliya dawladnimo kama jidho kala dambeyn kama jidho la ismaqlaa kama jidho niman markii horeetaba ujeediyo boob ku yimid oo ka aargoos u yimid baa maanta Soomaaliya maxaan ku dhahaa haysta madaxweynaha waxaan leenahay Xasan Shiiqow horta adigu hadeertaan nin waxa la hadii aad ka tagto u timaadid oo isla kiisi adigu markii hore nin hore oo hore ma ahayn markii hore madaxweynimadii hore ayaa kitaabkaad ma dhaw wax ku dhimay waxaan ku leenahay maanta waxa taagan tahay kitaabkii dambe ku daba jaray horta adigu nin wax loo yeeriyaa tahay nin wax yeeriya ma tihid xasan waxaan leenahay taas anaga hadaan raana madaxweynihii ma aqaan waa ku dambaabaynaa laakiin qof wax loo yeeriyaa tahay waxa wax ku yeeriya abeesada jiifta ee Djibouti abeesa jiifta Djibouti asagana amarka ka qaadata Soomaaliya kugu haga Soomaalida waxay tiraahdaa ninkaad ushaada ka qaadan kartaa loo dhiibtaa Xamse Xasan Shiiqow Xamse adaa keenay waa inaad ushaada ka qaadan kardo ninaad ushaada ka qaadan kardaad u dhiibatay daarood baan ku soo gashay Xamsena daarood ma ahan waa marxuun meel yaala weeye adiga ya asaga waxba la idin yeeriyay waxmad yeerisaan waxaan leeyahay marka ninka la yiraahdo ninka fadhiya shabaabka fadhiya meesha la yiraahdo Kismaayo way kaaga dhamaata meeladeeda waji aad ku haysatana lama arko waxaan ku leenahay Xasan Shiiq inta ku qaada gada kuma gayn karo wallahi baan Xasan Shiiq gada ku gayn karin oo marxuunku ku gayn karin Xamsa kuma gayn kara gada ragi lahaada xoog ku haysta ayagaana degan ayagaana isku filan dawladnimada idinkaga ma baahna ayaga isku filan waxaan leenahay gada isku filaada marxaana isku filow ilaahayna waa idinku filayaa adigu isku kalsoonaada waxaan leenahay marka anagu ninkii horgal ah iyo ninkii balaaya wadato iyo ninkii lacag soo doontayow gada xoolo ma yeelaan dadkii lahaada xoolihiisa gada isku haysta madaxweynaha Xasan Shiiq madaxweyne ma ahan madaxweynihii dalka burburiyay weeye wuxuu wado oo yaani dhibaatada hadda uu wadana waa aargoosti farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajana dalka wuu dhisay deegaanka wuu dhisay ciidamada wuu dhisay asaguna inuu dumiyo ku tala gala taargad buu naga dhigtay hadaanu nahay beesha sadana dad la cabriyo waa ka weeyihiin dad la baabi'iyo waa ka weeyihiin dad la dhibaateeyo waa ka weeyihiin annaga farmaajo madaxweynuhu ahaa dalka wuu dhisay si qurux badan oo sharaf badan buu u dhisay dalkana siduu u dhisay qof u dhisay ma jirto madaxweyne Soomaaliyeed buu ahaa madaxweyne qabiil ma ahayn madaxweyne qabiil weeye Xasan Shiiq Soomaaliyana wuu baabi'iyay hadda dagaalku wuxuu ka socdaa Baraawe wuxuu ka socdaa Gado wuxuu ka socdaa Puntland wuxuu ka socdaa Gooja Cadde intaas ba Xasan Shiiq Maxamuud baa mas'uulka ah mas'uuliyadeedana asaga iska leh waqooyiga galgaduudna waa loo soo socdaa qoorqoor waa loo soo mindiyalisanaaya anigu Xamse waxba ka sheegi maayo Xamse mayd weeye maydna lama hadlo maba rababa inaan wax ka sheego Gado waxa degan dad aan cadkooda la cuninin dad aan guryahooda la gelinin dad aan ilmahooda la dhibaataynin baa Gado degan beesha sadaana la dhahaa waxaana idin sheegayaa mareexaan waa isku duubayaha maantayto waxaana kama u qaadi karo Axmed Geedanaarka 20 sano dalka haysta oo yiri Jubbaland baan ahaa laftigiisa loo duulaya mareexaan waa mareexaasade wax lagama qaado wax lagama cuno waxba kama qaadi kartaan alxamdulillaah rabbil caalamiin ciidankeeda iyo xoogeeda iyo tababarkeeda iyo nolosheeda aan haysanaa ha ogaadeen waxaad u sheegaynaa tuugta horgalada mareexaan reegaysanaya oo raba inay mareexaan isku baabiiyaan tuugta horgaladii cabaasho kale tuugta wareegaya iimaan la'aanta lacagtu qaaday iyo looma doonayo mana rabno mana dubi karaan mana keeni karaan waxaa kala soo hartay minka xildhibaanada waxaana laga soo
doorto ceelwaaq oo ku shiraya xabar oo ku hadlaya afka nimanka ku hadlayeen xildhibaanna nooma ahan waxa weeye horta dawladda Soomaaliya wax fahmay Puntland baa jirta wax hargeheedii ka laabatayna Puntland baa jirta sida ay hargeheeda uga laabatay oo uga baxday oo dulmigeeda ay fahanteen horta Puntland way ku mahadsan tahay waad ku mahadsantiin gadana in badan bay horta u sheeganay Axmed Madoobe mana tagin mana xukumin mana tagi doono waxna kama qaado dawladda federaalka horta way dhaarat dhaar bay martay gada intay u dhaaratay kamid anagu ku dooni mayno ninkii gada dilaahayo dagaal baa naga dhaxeeya diidayo anagu ku dooni mayno ninkii gada dilaahayo dagaal baa naga dhaxeeya maysin qaadan mayno dagaal baa naga dhaxeeya dulmina mayno naga dhaxeeya dulmina kala qaadan mayno ninkii gada gadoomiyo wanal ku hanaya ninkii gada gadoomiyo gornayl baa naga dhaxeeya gutooyinka kiidiro haday geystaan xasuuq haday xasan baa u qoolan haday geystaan xasuuq xamsiyo xasan baa u qoolan ninkii guud gornayl baa ku heeya ninkii gadaga miyo gornayl baa naga dhaxeeya ninkii guutada diro haday geystaan xasuuq xamsiyo xasan baa u qoolan haday geystaan xasuuq xamsiyo xasan baa u qoolan axmed naaxdiidayo dagaal baa naga dhaxeeya dulmiga u dulqaadan mayno dagaal baa naga dhaxeeya dabkana kala qaadan mayno ninkii gadagadamiyo gornayl baa naga dhaxeeya ninkii gadamiyo gornayl baa naga dhaxeeya ninkii guutada diro haday geystaan xasuuqa xasan baa u qoolan haday geystaan xasuuqa xamsiyo xasan baa u qoolan axmedna xilka haysan maayo axmedna xilka haysan maayo axmedna xilka haysan maayo